waxaan rabaa hal kelimad oo dhaxalgal ah dadkayga inaan ku dhaho sida ogtihiin xitaa marka loo fiiriyo maamulka meel buu ka bilowdaa meelna waa uu ku dhamaadaa sidaasi ay tahay waxaa jirto dad anaga aan ilownay oo had iyo jeer maamulka hadday tahay iyo shacabka iyo deegaanka hadday tahay mar walba garab taagan laakiin se anaga aan ilownay dadkaasi ayaa waxa ay waa dadka ganacsatada ah oo had iyo jeer markaasi dadkooda ay garab taagan yihiin barnaamij kasto la qabanayana ama shay kasto uu jiro barnaamij ah ay ka qayb qaadanayaan iyo sidoo kale qurbajoogta oo had iyo jeer iyaguna ay u taagan yihiin in sidii markaasi deegaankii iyo dadkii loo horumarin lahaa degmada wanleweyn aan laga qaban jirin xafladaha ama munaasabadaha gaarka ah reer wanleweyn maanta kadib way qabsan doonaan barnaamij kasta ee ha ahaado munaasabad ama barnaamij nooc kasta ha ahaado maanta wixii ka dambeeyo waan qabsan doonaa annagana haddii la yidhaahdo barnaamijaa la qado dhacaysa in markaasi qarash loo baahan yahay maanta wixii ka dambeeyo barnaamij walba la qabanayo reer wanleweyn waxaa idin garab taagan waa ganacsatadiinna iyo qurbajoogtiinna cid bani aadana aad wax kaga baahantihiin ma lahan kaloo idin garab taagan had iyo jeer idin soo jeeda waa maamulkiinna waxaan idinka codsanayaa maamulkana inaad si fiican ula shaqaysaan ganacsatada aad bay u mahadsan yihiin jinaada oorshe qalbigay aftiishe iswayne adduunya leeya